waxaan sidoo kaleeto dawladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka baaq uga dirayaa in loo dhibriyo lana ixtiraamo qaylada maalmahan ka soo yeeraysa magaalada Muqdisho ee ku aadan in dhul qabuuro ah laga saarayo meydadkii halka ku jiray taasoo runtii sharciga samaawiga iyo midka bulshadu dhigtayba siinaya ixtiraam qabuuraha iyadoo aan ognahay baahi dhuleed inay maanta Soomaaliya u qabin inay qabuuro faagto dhulka Soomaaliya boqolkiiba 70 waa bannaan yahay dadkiisu waa yar yahay meel kasta iyo goob kasta ayaa haddii loo baahdo laga fulin karaa arrimo ku saabsan baahiyaha dawladda waxaa sidoo kale ognahay xarumihii iyo xeryihii dawladda in la yiri waa laga maarmay oo la iibinayo haddana la leeyahay qabuuraha laga maarmi waayo waa la faagayaa waa arrimo aan isqaban karin marka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu bulshadaas dhibaataysan uu u dhibriyo iyadoo lagu jiro maalin carafo go'aanadaas cid kasta ha qaato sabab kasta ha lagu qaato waxaan halka baaq uga dirayaa in dib loo eego dadkana loo naxariisto intaas waa iga fariin guud waxaan sidoo kale u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ay nabadda ka shaqeeyaan inay midnimada ka shaqeeyaan in arrimaha khilaafka u dhaxeeya ay wada hadal ku dhameeyaan in colaadda la joojiyo in ilaahay loo soo noqdo in nabadda laga wada shaqeeyo bini'aadanka intuu nool yahay aragtidooda way iskhilaafsanaanaysaa quraanka ilaahay ku sheegay khilaafkaasi ma aha inuu sababeeyo in dadka loo geysto dhibaato adduunyada dhan way iskhilaafsan tahay nabad iyo baraaray ku wada nooshahay waxaan u rajaynayaa bulshada reer Puntland inay nabadooda adkeeyaan inay wada jirkooda adkeeyaan in ay mar walba ka hormariyaan danta caamka ah danta gaarka ah waxaan u rajaynayaa deganaansho waxaan u rajaynayaa xukuumadda iyo golayaasha kale ee dawladda saddexda gole ee dawladda golaha baarlamaanka golaha garsoorka waan ka xumahay inaan xusin markii horeeto gudoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka ah waxaan rajaynayaa golayaasha dawladdu inay noqdaan golayaal wada shaqeeya bulshada u wada adeega isdhaafsada xiriir dhow waxaan uga mahad celinayaa golahan baarlamaanka iyo guddoonkiisaba in wada shaqaynta golaha xukuumaddu uu aad u sarreeyo barnaamijkii jihaynta ay xukuumaddan ay soo bandhigtay oo hadda hor yaalla golaha baarlamaanka markii la bilaabayay la furayay waxaa ka wada qayb qaatay saddexda gole ee dawladda golaha garsoorka golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan noqonno dad ummadooda u adeega iska kaashada waxa wanaagga ah waxyaabaha bulshadeenna dheeriga ku ahna ee ka wada digtoonaado khudbaddaydan kuma salaysna waxyaabaha la qabanayo oo hadda aan soo bandhigayo iyo wixii la soo qabtay maxaa yeelay iyadoo laba buug ah ayaan waxaan u qaybinnay golaha baarlamaanka oo ay khusayso waxaan rajaynayaa inay si tafaasiila u dheehdaan waxyaabihii qabsoomay oo wixii dhaliila ay ka soo saaraan waxaa kaloo hortiinna yaalla 5 sano soo socota wasaarad walba waxa ay malaynayso inay qabato hortabinta u leh iyadoo ka baaraan degtay iyada iyo howlwadeennadeeda waxaan rajaynayaa in barnaamijkaasi uu noqdo intiisa badan mid fula waxaan u soo bandhignay oo inugu dhiibnay inaad xukuumadda kula xisaabtantaan idinka mas'uuliyiintii dadweynaha u matalaya ah iyaga ayaa soo qoray wasaarad walba hortabintan iyaday ka timid wixii duruufu u diidana in la arko wixii gaabis ka yimaadana inaad kula xisaabtantaan idinkoo matalaya dadweynaha mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan golaha wakiilada hor yaalla 9 sharci kuwaasoo isugu jira shuruuc horay u jirtay oo dib eegis lagu sameeyey iyo hindisa sharciyeedyo cusub dhammaan xeerarkan aan soo sheegay waxa ay qayb ka ahaayeen qorshihii dawladda u deganaa inay meel mariso kuwaasoo qayb ka ah tayeynta adeegyada dawladda waxaan rajaynayaa in dhammaantood aad ansixin doontaan inta lagu jiro kalfadhiga 54aad ugu dambayn waxaan u rajaynayaa kalfadhigan inuu noqdo mid guulo badan looga gaaro arrimaha masiiriga ah ee idin hor yaalla